الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. nin dhalinyaro ah maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabar jeclaaday. jecel dheer ayaa dhex maray. wuxuu damcay gabadhii inuu guursado ayay waxa way heshiis ku gaaray. reerkii buu ka doonay, laakiin arrimo qadar awgeed ayaa waxa way la isu fahmi waayay dhaxdoodii labadii qof iyo reerihii. المهم guurkii ma suurtagelin. ninkii aad u murugooday, qoftii waa hilmaami waayay, gabadhiina sidoo kale wiilkii way hilmaami weysay. ninkii dhalinyarada ahaa murug badan kadib markii dambe xuniyahow saan kuma sii jiri kartide iska guurso. gabar kale ayuu waxa way doonay u guursaday. marka gabadhan dambe u guursanayay jacaylkii hore oo kale ma ah, laakiin maadaama wax badan oo soo maray wuxuu yiri bal alxamdulillah iska guurso. 5 sano kadib 6 sano kadib guurkii dambe ninkii wuxuu yiri alxamdulillah ilaahay baa guurkii hore waagii iga reebay, waayo hadda alxamdulillah wax badan baa ii kala baxay. gabadhii waxay noqotay gabar muslimad ah oo mu'minad ah, wanaagsan, marwo wanaagsan oo akhlaaq leh, ninkeeda adeecda sida nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sheegay. ilmaheeda waxa way si fiican u korisa. gurigii wuxuu noqday guri iimaan leh, guri islaam ah. ninkii waa nastay kasoo alxamdulillah. ilaahay ma hada leh walla subhanahu wa ta'ala iwaafajiyay gabadha inaan guursado. haddii cajalada dib aan u dhigno xoogaa oo dib loo celiyo, maalintii gabadha la yiri guurkiina ma dhici karo, gabadhii hore uu jeclaa aad buu u murugsanaa. 6 sano kadib gabadhan kale waxay noqotay gabadha ugu jecel yahay oo uusan rabin wax kale inuu waxa way ku bedeshto. waxaan ka soo wadnaa sheekada وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. بدنا وانا laga yaabaa in badan wax badan oo aad jeceshahay inay shar ku tahay, wax badan oo aad neceb tahayna inay khayr ku tahay. macnuhu waxa weeye ilaahay tala saaro, ilaahay sudib. الإسلام هو الاستسلام لله. إسلام waxa waaye in Allah subhanahu wa ta'ala sudibto oo arada Allah subhanahu wa ta'ala arrinkan hadduu khayr yahayna ee waafaji, hadduu shar yahayna Allah waxa waa iga qabo. bini aadam baa tahay oo daciif baa tahay, wax badan aad doonaysay in ay ku fulaan hadduu Allah subhanahu wa ta'ala uu ku fulin lahaa laga yaabaa in dhibaato badan aad la kulmi lahayd. xoolaha aad raadinaysid, mansabka aad raadinaysid inay shar ku tahay baa laga yaabaa. laakiin mar kastaba qalbigaada deji. ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ka baridaa waxa ugu wanaagsan iyo ugu khayrka badan. nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi ducooyinka una bara kamid ah in Allah subhanahu wa ta'ala aad umurahaada u dhibato. ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah. ilaahu armahayga dhan ii wanaaji adiga oge, waayo Allah subhanahu wa ta'ala waa aliim. Allah subhanahu wa ta'ala asaga ogsoon waxa soo socda iyo xaaladda aad ku jirtid iyo wax kasta oo adduunka ka dhacaya umuraha. ilaahay baa ogsoon. ilaahay tala saaro. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. qofka Allah subhanahu wa ta'ala tala saarta ilaahay baa ku filan. marka ilaahay baa kugu filane ha degdegin. haddaa wax heli weysid qadar Allah ma shaa facal. farqiga u dhaxeeya muslimka iyo qofka aan muslimka ahayn waa qadarta. waxyaabaha la yaabka leh waxbaad raadinaysaa oo waqti badan ku bixinaysaa, in badan markaa qarka u taagan tahay baa heli weynaysaa. qofka muslimka wuxuu leeyahay alxamdulillah ilaahay baa qadare. laga yaabaa ilaahay wax kaloo shar ah inuu iga waxa way ilaalinayay. waxbaad waxa way diidaysay, wixii baad haddana heshay oo haddana ama waxa way kugu dhacay. alxamdulillah dheh,
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كمسلم قفك مؤمن نولشي سوى دقن تحي قلبي سوى دقن يحي حالكي سوى وناكسن يحي وايو أريميه سؤالن الله سبحانه وتعالى أيو أديبتها قلبي سؤالن حق الله أيو جراه تانا وحين حسوسين إسا حديث كان النبي صلوات ربي والسلام عليه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. لا يابضنا أرنك مؤمنك أمر كيسو لنبوا خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحوليه هدي قفك مسلم كمؤمن وح كفر تابطه أما أصيبه وح وناكسا شكر إلهي بك شكريا فكان خيرا له خير بواتا. وإن أصابته ضراء dhibaat iyo gaajo iyo waxa way xogaa dhib haduu taabto sabara uu sabraa fakana khayran lah arinkaasna khayr buu yahay hayni amar arinka mu'minka labadaba khayr markastaba khayr buu yahay marna wixii uu helay oo khayr wuxuu leeyahay alxamdulillah waa farxaya marna wixii uu heli waayay oo dhibaato ama ku dhacay صبر وصبر وحلا الحمد لله إلهي باخك وحكا خير بدن كيني بكا نحلل نفسنا عسى أن يكون خيرا عسى إن الله سبحانه وتعالى أرين كان أنسان كدغو لغياب إن الله سبحانه وتعالى أرين كان وحوي كدغو أرين وناكسن مركز تبا إلهي تلا صارو إلهينا سبحانه وتعالى أرين ما هذا وكفر ذن توفيق الله نوفجي يا خيرك يا وناقة أدى أمها سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.